kadib maalintii shalay qarax ismiidaamin ah oo la doonayay in lagu qaarijiyo gudoomiyihii hore gobolka Bay ahna wasiirka arrimaha gudaha maamulka qorshaha ah 6 gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Fataax Geesay qaraxan ismiidaaminta ayaa waxa ku geeriyooday 10 ruux halka dhaawac uu ka soo gaaray ku dhawaad 30 ruux xukuumadda Soomaaliya ayaa cambaaraysay qaraxaasi ismiidaaminta ah maalintii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo maanta wariyaasha kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay xukuumaddu diyaarad ay u diri doonto si dhaawacyadooda loogu dabiibo magaalada Muqdisho asigoona sheegay in golaha ay ka xun yihiin qaraxaasi ismiidaaminta ah ee maalintii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa magaalada Baydhabo ka dhacay qarax dad fara badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo aan waxba galabsan lagu laayay in kale oo fara badanna ay ku dhaawacmeen runtii qaraxaas waxa uu ahaa calaamad kale oo muujinaysa in kooxaha nabadiidka ahi ay beegsanayaan shacabka Soomaaliyeed dadka ku dhintayna ama ku dhaawacmay waxa ka mid ahaa haween iyo caruur Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan xukuumadda Soomaaliya xalayba waa la socotaan oo waxa ay ka soo saartay warbixin ku saabsan sida ay uga xun tahay dhacdadaas iyo tacsida ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu la wadaagay shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan eheladii iyo dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay qaraxaas intaas ka soo koow waxa kale oo iyana jirtay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kadib markii uu la hadlay maamulka deegaanka xaaladaha dadka dhaawaca ah la qiimeeyay in la go'aamiyay in diyaarad loo diro dadkaas si loo keeno magaalada Muqdisho oo daryeel dheeraad ah ama caafimaad iyo gurmad ay u helaan magaalada Baydhabo ilaahay mahadiis diyaaradii loo diray dadkaas waxa qaraxaasi si isku mid u cambaareeyay madaxda dalka ugu sarreeyay iyo beesha caalamka oo sheegay inay ka xun yihiin qaraxaasi ay ku geeriyoodeen 10 qof halka dhaawaca uu ka soo gaaray 30 ruux ayagoona ku tilmaamay in qaraxaasi uu ahaa mid lagu qalqalgelinayo ammaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Cabdirashiid Nuur Ibraahim TV-ga Somsad magaalada Muqdisho.